kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah guddiga doorashada madaxweynaha oo si degdeg ah ku doortay gudoomiye kadib kulan ay Muqdisho ku yeesheen iyo madaxweyne Farmaajo oo looga adkaaday loolan adag oo uu u galay kursigaasi. Saciidani madaxweynaha Puntland oo meel lama filaan ah uga soo baxay madaxweyne Farmaajo iyo mucaaradkaba xilli maanta shaqsiga loo doortay gudoomiyaha doorashada madaxweynaha uu yahay senator uu soo saaray Saciidani. haddaba tallaabooyinkan dani ma u horseedi kartaa inuu meel fiican ka gaaro doorashada madaxweynaha dalka? qodobada kale waxaa ka mid ah xog lama filaan ah oo laga helay tirada xildhibaanada ee uu haysto madaxweyne Farmaajo. maxaa ka jira in madaxweyne Farmaajo uu ka walwalsan yahay inuu waayo codad ku filan? tirada uu ku tashanayo oo la helay ayaan idiin soo gudbin doonaa, iyo wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo maanta ka dhacay Muqdisho, dhimashada iyo dhaawaca askar ka tirsan militariga Soomaaliya oo uu dagaalku sababay iyo xiisad ka taagan mid ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho ayaan idiin soo gudbin doonaa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena. barnaamijkan sii sheergareeya uu sii gudbiya saaxiibadiina kale idinkugu jira baraha bulshada. waana khamiis 5 bisha 5 ee May sanada 2022 aynu ku bilowno wararkeena. guddiga doorashada madaxweynaha ee soo socda ayaa waxa ay maanta markaasi doorteen gudoonkii hogaamin lahaa ee doorashadooda iyo weliba sidoo kale sidii laga yeeli lahaa doorashada madaxweynaha, jadwalkii la soo saari lahaa iyo sidoo kale howlaha kale ee guddigaasi markaa loo xil saaray, iyadoona kursiga gudoomiyaha dagaal adag markaa loo galay oo mucaaradka iyo madaxweyne Farmaajo intaba markaasi ay iyagu ku loolameen. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa si rasmi ah uga bilaabatay qabanqaabada doorashada madaxweynaha, taas oo la filayo inay qabsoomto maalmaha soo socda si loo dhammaystiro guud ahaan doorashooyinka. guddiga doorashada madaxweynaha ee labada aqal ee baarlamaanka ee shalay la soo saaray ayaa maanta yeeshay kulankoodii ugu horreeyey, waxaana markaasi shir gudoomiyey senator cali shacbaan ibraahim oo ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. kulanka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan Cabdulaahi Cumar Abshirow, iyada oo gudoomiye loo doortay senator Cabdiqani Geelle Maxamed oo golaha ka soo galay maamulka Puntland, waxa uuna helay 10 cod. sidoo kale xildhibaan Maxamed Axmed Beere oo tartanka qayb ka ahaa ayaa helay 5 cod, halka senator Cabdi Ismaaciil Samatar uu isna helay 2 cod oo keliya. sidoo kale waxaa xilka gudoomiye ku-xigeenka guddiga markaasi ku tartamay senator Maxamed Ibraahim Awgaab Cismaan, xildhibaan Maxamed Keerow Maxamed iyo sidoo kale Maxamed Ibraahim Macalimow, waxaana tartanka gudoomiye ku-xigeenka uu markaasi noqday mid aad u adag. wareegii labaad iyo saddexaad ayaa waxaa aad ugu loolamay xildhibaan Maxamed Keerow Maxamed iyo sidoo kale Maxamed Ibraahim Macalimow oo golaha shacabka ka tirsan, waxaana isla gaareen ilaa iyo wareegga afraad, balse ugu dambeyntii waxaa guuleystay oo guusha ay raacday Maxamed Keerow oo codad aad u yar oo kooban kaga adkaaday xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow. Maxamed Keerow Maxamed ayaana noqonaya gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada ee madaxweynaha. guddiga ayaa looga fadhiyaa in uu dedejiyo doorashada islamarkaana uu soo saaro habraaca iyo jadwalka doorashada madaxweynaha oo si weyn markaasi loogu loolami doono. dhinaca kale waxaa caasimadda ka socda kulamo ballaaran oo siyaasadeed islamarkaana qayb ka ololaha doorashada madaxweynaha, kuwaas oo ay wadaan murashaxiinta madaxweynaha oo markaasi hadba dhinac u kala jiidanaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. doorashada dalka ayaa guud ahaan markaasi u muuqata mid weji kala yeelatay, iyada oo la filayo in markaasi toddobaadyada soo socda doorashada madaxweynaha markaasi la qabto amaba la asteeyo marka ay ugu yar tahay. dhinaca kale hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu markaasi meel lama filaan uga soo baxay mucaaradka iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo. Saciid Dani oo isagu markii hore sheegay inuu doonayo inuu tartamo tartanka Villa Soomaaliya, balse ku xadfay inuu ujeedadiisa ugu weyn ay tahay inuu meesha ka saaro madaxweyne Farmaajo, ayaa hadda waxa uu muuqdaa mid markaasi isagu si weyn kaga dhex muuqda siyaasadda doorashada ee dalka ka soconaysa. gudoomiyaha cusub ee guddiga doorashada madaxweynaha senator Geelle waa nin markaasi ka soo jeeda Puntland, waxaana soo saaray Saciidani. waxa uu horey markaasi jago uga soo qabtay wasaaradda kalluumaysiga ee maamulkaasi Puntland, waxaana markaan si cad loogu jeedaa in Saciidani uu markaasi isagu mar waliba galaangal ku leeyahay
ee arrimaha doorashooyinka ee dalka. Gudoomiyihii guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID ee dhibaatada xoogga leh u geystay villa Soomaaliya waxaa la fahamsanaa inuu markaasi ahaa shakhsi uu watay Saciid Dani islamarkaana kasoo baxay deegaanada maamulka Puntland. Mucaaradka iyo sidoo kale markaa madaxweyne Farmaajo ayaa dhammaan u arka Saciid Dani mid markaasi halis ku noqon kara qorshahooda doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana markaasi suurtagal ah in Saciid Dani uu markaa isagu natiijooyin waaweyn la yimaado. rajadiisa ayaa waxaa markaasi lagu tilmaamayaa inay tahay mid markaasi meel dhaxa islamarkaana la saadaalinayo in uu natiijo fiican ka keeni karo. waa xagaag dhinaca kale madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa dhowaan sida qorshuhu yahay la dooran doonaa, taas oo isha lagu wada hayo hogaamiyaha dalka iyo markaasi dadka qofka usoo bixi doona. inkastoo murashaxiinta ay wadaan olo baaxad leh, haddana sida la dareemayo waa la kala miisaan culus yahay, taas oo rajogelin badan aysan haysan in xilkan ay qaarkood heli karaan. waxaynu helnay macluumaad sir ah oo laga soo wariyey shakhsiyaad lagu kalsoon yahay, iyada oo Farmaajo uu hadda helayo taageero ballaaran oo golaha shacabka iyo midda aqalka sare ah. xildhibaan Kolonejis ayaa waxa uu saaxiibadiisa nabad iyo nolol ee golaha shacabka ku sugan markaasi ka dalbaday inay dardargeliyaan ololeynta dib u doorashada madaxweyne Farmaajo. falanqeeyaha la yiraahdo markaasi Cabdirashiid Xaashi oo ka tirsan macadka Heritage ayaa sheegay inay hayaan macluumaad ah tirada xildhibaanada codadkooda uu Farmaajo ku tashanayo ayna u badan tahay haddii ay wax isbedelin inuu markaasi soo laaban karo. waxa uuna markaasi tilmaamay in markaa madaxweyne Farmaajo uu markaasi isagu helayo 50 cod, inkasta oo uu tilmaamay in madaxweyne Farmaajo uu wareegga labaad markaasi heli karo codad gaaraya 120. in madaxweyne Farmaajo 120 xildhibaan dhaafi waayo oo washamsi lagu qaado, isaga oo taas ogna uu tartanka markaasi galo inuu fashilka ka cabsado oo aanu ka qayb gelin doorashada, iyo in uu 70 xildhibaan ka dhiman ku iibiyo amaba uu siiyo xildhibaan waliba 400 oo kun 30 milyan uu markaasi bixiyo, ayuu yiri dhikaar oo markaasi isagu arrimahan saadaalinayay. tan waa saadaal iyo sooyaal siyaasadeed oo lasii hordhacay, balse waxaa sida mutaxan la ogaan doonaa hoolka doorashada kolka la tago iyo shakiga iyo shaqsiga markaasi u qalma in uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. nacaybka siyaasi ee mucaaradka u qabaan Farmaajo ka sokow, haddana waxaa jira kuwo laba wajiilayaal siyaasadeed lagu sheegay islamarkaana u muuqda mid markaasi hankooda uu hoos aadi karo. madaxweyne Farmaajo waxa uu haystaa 100 cod ka badan iyo ma haysto, waa mid dhagaha shacabka ku soo dhacayay muddooyinkii lasoo dhaafay, balse waxaa isweydiinta ay tahay baarlamaanka yay kalsoonida siin doonaan. aaminsanaanta iyo qanacsanaanta siyaasadeed waxaa gacantooda ay ku jirtaa wakiilada shacabka oo ah labada aqal ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, iyadoo la sugayo shaqsiga ay markaasi iyagu u hibeyn doonaan codadkooda islamarkaana ay ugu heelin doonaan rabitaanka dadka Soomaaliyeed ee shacabka ah ee iyagu doonaya in isbedel dalka markaasi u galo. ugu dambeyntiina waxaa warar dheeraad ay ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay iska horimaad maanta ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, kaasi oo sababay dhimashada markaasi 2 qof iyo dhaawaca 2 kale. israasaynta u dhaxaysay askar ka wada tirsan militariga Soomaaliya ayaa ka dhacday xaafadda Tarbuushka ee degmada Wadajir, sida ay sheegeen dadka deegaanka. dhawaaqa rasaasta oo markaasi muddo kooban socotay ayaa si xoogan laga maqlay xaafado dhowr oo ka tirsan degmadaasi. inta la xaqiijiyo waxaa shaqadaasi ku dhintay ugu yaraan 2 askari, halkay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. wararka ayaa sheegaya in askarta geeriyootay iyo kuwa dhaawacmaba ay markaasi ahaayeen qaraabo, islamarkaana ay ilmo adeero ahaayeen sida markaasi la sheegay. waxaana la tilmaamay in dagaalkan uu ka dhashay kadib isqabqabsi ka dhashay guri ka mid ah gurigii markaa ay askartaas mid ka mid ah uu markaa deganaa, iyada oo sidaasina dagaalka uu markaa ku dhashay. weli faahfaahin ma jirto cid bixisay oo ka tirsan hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, inkastoo markaasi halkaasi ay tageen ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa booliiska oo markii dambe kala dhex galay ciidamadaas militariga ka tirsan ee dagaalamay, sidoo kalena la sheegay inay ahaayeen dad ehel ah.
qodobkaas ayaa ugu dambeeyey warkeena tan iyo warkaan war la mid ah intaanu dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.